بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan halkaan idinkula wadaagaynaa maantay shirkeena jaraa'id xildhibaanadii golaha shacabka shalay ajandihii muddo kordhinta ahaa sharci darrada ahaa ee golaha shacabka la keenay is-hortaagga ku sameeyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursalna uu ka soo saaray waraaqda xalay ayaa shirkan jaraa'id maanta halkan ku qabanaya. waxaan rabnaa marka dhowr qodob ayaa shirkan uu ka koobnaa doonaa. tan koowaad ay tahay shalay iyo sidii ay wax u dhaceen, tan labaadna ay tahay waraaqda ka soo baxday gudoomiye mursal waxa ay ku fadhido, iyo sidoo kale qodob saddexaad aan uga hadlayno ciidamo shalay la keeno golaha shacabka oo dharcad ahaa oo runtii ay hogaaminayeen dad al-shabaab hore uga tirsanaa, oo iyadana macluumaadkeeda aan inta idinkula wadaagi doono, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah gunaanadka shirkanaga waxa aan yeelayno xildhibaanadanada waraaqda sharci darrada xalay uu ka soo qoray gudoomiye mursal. annaga xildhibaanada golaha shacabka subaxii hore ayay tageen xarunta golaha shacabka. markii aan tagna xarunta golaha shacabkana waxaan ugu tagnay ciidamo tuuran oo runtii boqolaal gaaraya oo xarunta golaha la keenay. sida aad la socotiin golaha shacabka ciidamo boolis ayuu leeyahay oo ilaaliya amniga xarunta golaha shacabka iyo xildhibaanadaba. ciidamo aan ahayn kuwaas oo dharcada ayaa xarunta lagu soo daabulay. markii lagu soo daabulana dareen inuu meesha ka jira ayaan aragnay. gudoomiye mursal ayaan raadinay, guddi ayaan u dirnay, waa la fadhiisanay. saddex qodob ayaan gudoomiyaha ugu tagnay. tan koowaad waxay ahayd ajandahan degdega oo procedure-kii ama nidaamkii xeeroosaadka uu tilmaamayay ee kulamada golaha shacabka aan waafaqsanayn, sababta uu ku yimid aan doonayna inaan ogaano. tan labaadna ay ahayd ciidamada tirada badan ee xarunta golaha shacabka la keenay, iyo qodobka saddexaad oo ahaa hadalhaynta socotay ee ku saabsaneed muddo kordhinta la sheegay in loo samaynayo in maanta la samaynayo golaha shacabka uu meel mari doono. runtii markii aan la fadhiisano gudoomiyaha nagalama xishoonin, si aan gambasho lahayn wuxuu nuugu sheegay ciidamada meesha joogay isagu inuu dalbaday loona keenay, haddana uu soo badsanayo kuwo kaloo ziyaada oo dalban doono. laba, wuxuu noo sheegay heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashada dadban lagu jideeyey inuu fashilmay oo wax heshiis oo jira aysan jirin, iyo qodobka saddexaad oo ah in uu samayn doono muddo kordhin madaxweynaha iyo baarlamaanka loo samaynayo. wuxuu kaloo ku sii daray erey handadaadaha oo uu yidhi cid loo joojinayo ama lagala tashanayana ma jirto. intaas kadib markii ay dhacday oo shirkii guddiga annagu aan dirnay iyo gudoomiye mursal oo soo itlaaday, waxaan iskugu nimid xarunta golaha shacabka. dood ayaan ugu dhex martay gudoomiye mursal. doodanaduna waxay ku khotantay laba qodob oo ahaa tan koowaad kooramka golaha shacabka inuusan dhammayn, shirkuna uusan furmi karin. sida aad la socotiin qodob dastuuri ayaa tilmaamaya kooramka 50% lagu daray hal inay joogaan marka shirka ajandihiisa la gudagalayo furmay. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa ajandaha la keenay inuusan waafaqsanayn qodobka xeeroosaadka ee 25aad, qasabna ay ahayd in lasoo mariyo guddiga joogtada. sidaas daraaddeed maadaama procedure-ka lagu soo gudbiyay ajandahan uu khilaafsan yahay xeeroosaadka, in dib loola laabto oo gudoomiye uu soo saxo oo guddiga joogtada laga soo approval gareeyo, sidaasna kulanka baarlamaanka lagu horkeeno. meeshii buuq ayaa ka dhashay. buuqii kadibna wuxuu kalifay in shirkii lasoo xiro. intaas kadib xalay maray tahay 10 iyo barkii habeennimo magaalada muqdisho ayaa waraaq wiifta soo qoray gudoomiyaha oo leeyahay 15 xildhibaan oo mudanayaasha golaha shacabka ka mid ah ma imaan karaan muddo 5 kulamada golaha shacabka. go-aanka mursal ee uu ku sheegay in xildhibaanadana uga joojiyo kulamada golaha shacabka, marka koowaad horta ma jirto wax sharci ah oo u cuskado. labo, ma jirto sharci ama xeer fasaxaya in gudoomiyuhu soo saaro go-aan noocan oo kale. saddex, wuxuu meel uga dhacay xeeroosaadka golaha shacabka gudoomiyuhu. awoodda keliya ee gudoomiyuhu uu leeyahay xilliyada fadhiyada waa midda ku cad qodobka 16aad faqradiisa 6aad xeeroosaadka golaha shacabka ee si cad u qeexaya haddii ay jirto fawdo ama nidaam darro, gudoomiyuhu wuxuu xiri karaa fadhiyada, wuxuuna ajandaha maalintaas dib ugu dhigi karaa kulanka xiga. sidaas ayuu sharcigu ugu qoray. sidoo kale mursal wuxuu ku xadgudbay qodobka 25aad ee xeeroosaadka golaha shacabka ee xadeynaya ajandaha fadhiyada golaha shacabka.
guddiga joogtada ayaa diyaariya ajendaha fadhiyada golaha. ajendahana waxaa loo qaybiyaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dhan yahay. sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 14aad ee si cad u qeexaya inuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeeroosaadka iyo ilaalinta nidaamka golaha. sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 4aad faqradiisa 2aad ee xeeroosaadka ee ka mamnuucay in dhismaha golaha lala soo galo hub, isagoo maleeshiya darcada ku soo daabulay xarunta golaha oo irdahana ay taagnaayeen, korna ay saarnaayeen, gudaha howlka shirarkan ay ku jireen. ciidamadaas dharcadka ahaa ayaa waxaan rabnaa tafaasiishooda inaan inta ku bixino wixii ay ahaayeen. ciidamadaas waxaa watay nin la yidhaahdo shakiib oo shabaab hore u ahaan jiray, isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa bakaaraha, waxaana lagu xiray xabsiga dhexe. kadibna waxaa loo sii gudbiyey sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto. halkaas ayaa laga soo saaray, kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamada nabad sugidda. wuxuu shabaab u qaabilsanaan jiray dilalka qorshaysan ee dadka mas-uuliyiinta lagu laayo. wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin, wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska. ninkan waa markii labaad oo asaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenayo. sidoo kale ciidamada uu wata waxaa ka mid ahaa sida naloo sheegay kuwa shabaab ka yimid oo sarandi ku xaraysnaa oo dhammaadkii bishii Febraayo laga soo saaray bastooladana loo qaybiyey. ujeeddadooduna ay ahayd inay ka howlgalaan banaanbixii 26 February lagu qabanayo daljirka Daahsoon ee midowga murashaxiinta mucaaradku ay qabanayeen. qaar ka mid ah ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun. go'aankeena shirka Brito